salaamaya odayaasha dhalinyarada haweenka halkan goobta quruxda badan ay isugu yimid runtii dadaalka aad samayseen iyo taageerada aad u muujiseen musharax muuse biixi cabdi waan idinka mahad celinaynaa ayaan leeyahay waxa weeyaan horta yaan guusha laysisiin kulligeen iyo inaan guusha isisiin dadaal bay doonaysa dadaal waxa weeyaan waxa fantasiyuhu inoo dambeeya marka aynu guusha dhalayno ilaahayna siiyo waxaynu u baahanay marka hore inaan ducaysano marka labaadna inaan dadaalno ayaa loo baahan marka labadaas samayno inagoo isku duuban insha allah ayay markaa aynu dadaali doonaa oo aynu fantasiyaha samayn doonaa horta waxa weeyaan nin walba ilaahay baa qadarka waxuga qoray oo ogtiino aniga u dhaydo anigii wax doonaya laakiin aniga iyo muuse waxaa ku kala nasiib badan muusena oday wuxuu uga dhigay silaayo oo nin wanaagsan anigana ka ilaahay gacanta ii geeyo waa ka warhaysaa isma eegina horta labadeenoo saasaan ku kala nasiib badan laakiin waxa weeyaan waayo aragnimo aad u fara badan ayaan ka helay dadkana waan ku kala bartay dadka nooca qaar inay jiraanna ma ogeyn bayna noocaasoo kale jiraan nin qalbi wanaagsan oo iska shaqaysto oo weligaa dhibaato arag maaha laakiin in dadka noocaas oo kale inay nool yihiin gacantii qof bini aadam oo indha adayg halkan loo soo istaagay oo dadka noocaas oo kale inay jiraan baan ogeyn kii baa weliba caawa wax doonayo kule bahal uu soo xaday oo anu aadayo codka laygu siiyey doonaya inuu muuse kuu dhunto waa muuse caanadooda horta somalilan haddaynan runtii isu sheegin dhibaatada somalilan ka jirta waxa weeyaan runtaa inay isu sheegin imika intiina halkaa ku jirto o dhan mid qura oo u sheegayo odhanayo tube baa de waxaa la seetaa waa qaadayaada iska dhig rag baa iskale de ma jiro somalilan waxay u baahan in ay runta isu sheegin ayay u baahan muuse biixi cabdina waxaan idin sheegaya anigu hadday taydii ay dee godkaa iga gashay oo dee dadka noocaasa iga gashay adigoo ila noqon weyday in aan anigu ka masuugo inaan u haneeyo ayay noqotay anigu waana tafiirkaha iyo sharafta ay ku jirtay xagga halkaa istaagi lahaa oo la dagaalami lahaa oo aan cadhoon lahaa dagaal iyo samayn lahaa waxaan idhi war dadka bini aadanka ah waxaan ilaahay baa u qoray waxaana loo madaxyadii qoranto waxaynu ognahay in ilaahay laba nin unbaa u malanaya anigu dee inuu mid guulaysan doono innaguna mid baynu wadanaa oo aan taageersana midna waxa weeye muuse biixi cabdi midna waa cabdiraxmaan ciro labadaa nin buu horta mid guulaysan doono ka kale isagu xisaabta ku jira iskeenaayo labadaa nin ee guulaysan doonaa innagu mid bay la jiraa saansaantuna mid bay sheegaysa saansaantuna mid bay sheegaysaa somalilanna ay sheegaysaa dee waxa weeye qof walba oo reer somalilanna waxa weeye labada dhinac kala taageersan wayaan la iscadaawaysan marada yaan cadaawad laysu qaaday waxa weeyaan wakti yar baa dhiman waktigaa yar kadib dadku waa mid noqonaya intaana qof walba xuquuq uu leeyahay inuu kiisa taageero aniga marka qaar baa weli igu haysta oo intaba taageeroo leh haa muuse biixi buu raacay haddaa wad cirkan u raacayna haddaad waxaa qof walba xor buu yahay cid allaaliyo cidu doono inuu taageero idinkuna xaq baa u leedihin sida qof kalena xaq buu leeyahay waxaa laga yaabaa bini aadanka ilaahay baa wuxuu si u kala tusa anugu saan wuxuu arko iyo qof kale si wuxuu arko waa kala gaar weyn waxaan leeyahay muuse waxaa ka muuqata saansaan mid doonaya inuu dalka wanaag uu u sameeyo jecel inuu dadkii ehelkeeda ahaa uu la shaqeeyo waxaan ugu ducaynaynaa muuse hadduu ilaahay kursiga ku guuleeyo inuu marka kale xukunka ku guuleeyo kursigo keliya laguma guulaysto sababta guusha weyn waxa weeye marka aad kursiga ku fadhiisatid aad ummadda xukuntid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saaxiibkay maxamed cali bile oo runtii aad iyo aad ugu halgamay si weyna ula shaqeeyey muuse biixi inuu noqon doono garbaha oo muuse biixi ku duli doono insha
waxaan jecelahay in idinkuna doorta dhibaatada jirta Soomaaliya waxa weeyaan qabyaaladii weli kama inaan bixin Soomaaliya qaar baa koray qabyaalada iska daay hadda koor xaq dama waxa ugu qoran qabyaalada hadda iyaga koor xaq dama waxa ugu qoran wariyay inaan indhaha iska qarinay weli siyaasadii Soomaaliya waxay ku qiimaysan tahay ay ku beesgaraysan tahay qabyaaladii xilligan ka bixi lahayn iyo leadership hogaamintii naga saari lahayn waa mid kala weeye waa mid mustaqbalka weeye laakiin imika saacada la joogo dawladda iyo sooda shicibka Soomaaliya ma qabyaalad ku dhisan ana tusaale in soo qaadayo markii aan wadanka yimid aan doonayay maalin hore raacay ka sheeg aan doonayay in dadkayga aan dhaado warbal waxaan doonayay wadanka u bedelo ayaa markii ugu horeysay waxa lagu leeyahay soo reerkii already kale Soomaaliya waxba siimaayaan ninka siyaasiga ee reerkiisa weyn horta maanta dee muuse haddaan idinkiidu weyn dee kuwa kale waxba siimaayaan saama socdo marka uu ku kasban yahay nin wala oo siyaasi oo Soomaaliya tagaya in wada xaafadiisa marka hore uu wato oo uu ka shaqeyso markaas reeraha kale Soomaaliya wax siinay hatta halkay ka oran lahayn reerihii kale warniya reerkiisa wali baan doonay ayay ahayn hadda صار لكن ما كاسين شغلنا إن شاء الله ويكبرنا إن شاء الله واحد وجهنا يا مام دي ما ده مسدع وجامين دورو إن أيوم ده هم سيرتين قبيلة ترى قبيلة ترى يرايو استعمال كذا لا يرايو إلا يرايو لكن السياسة دي سؤال لا باي مقتنع وحالة الوجهنا ووعي جيالة إلهي واحد وجهنا وضعنا ناس خلاصة قبيلة خلاصة تقوى أهل ولا شيء وهويو أبتي أبير حبالير إيدو وحنا السود يعني مركا نعول بوفوي يعني وحنا ندير رجينا يقول بندير رجينا خير بندير رجينا أنا والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.